wiilka iyo gabadhii marka la isku soo aroosay oo gurigii la isugu keenay mid walba wuxuu waayey noloshii uu filayey oo isla hadda mar guursato nolosha way ku qaboobi mid kasta waa waayey waana midda maanta guryaheenna burburida weeye oo la arkaya gabdho garooba ah oo la arkaya wiilal odhanaya waxaan soo maray 10 waxa way dumar ah haye taa weeyaan aayadda bilowgii hore aan ku bilownay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu lahaa wajacala baynakum mawaddatan wa raxma maxaa loo waayey ilaan hadalka ilaahay subxaanahu wa tacaala waa xaqe maxaa loo waayey waxa keenaya marka ugu horraysaba diinta islaamka dhaqankeenna kuma salayn wiilka iyo gabadha markay isdoonanayaan mid walba waxa uu sheegayaa been gabadhuna waxay marsan waxyaaba wiilka soo jiida markaas hadda waxaa dib dambe ka soo baxaya kalarkeedii saxda ahaa wiilkuna gabadha wuxuu ku meersanayaa hadallo been ah ilaa waxa weeye Soomaali baa tiraahda haween been baa lagu soo xerogeliyaa runna waa lagu dhaqaa taasoo isticmaalaya markii gurigii la yimaado marka maxaa ka dhashay ilaa waa laba qofood oo marka xataa meherka la joogo meherka laftigiisa laga run sheeginba gabadha waxay oran si gabdhaha kale aan meel isaga saaro 5,000 ii dheh $5,000 ii dheh markaas waxa la oran gabadhii heblaaya ay 5,000 baa lagu meheriyay haye gurga oo dhan wuxuu ku aasmayaa hadal waxa way iga celi ah dumarkuna waxay dooranayaan wiilal waxa weeye jilbaha surwaalo ka jeexan yihiin oo waxa weeye madaxu gaduudan yahay kaas goorma xaq ilaalinaya kaas ilaahay subxaanahu wa tacaala qiyaanay oo diintiisa qiyaanay goorma ka naxaya haye samidan waxa is cadayday ee jirkeedii badashay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aan uga baqin goormay waxa weeye diin alla ku ilaalin goorma heshiinaysaan mawadda iyo raxma waxa helaya kuwa diinta ilaahay ilaaliyay haye وإسقلها رسولك صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك رجع إسقلها الله يا رسولك صلى الله عليه وسلم أيو يردو مركا واحد لو قرصة 4 أسبابات رجعوا دونتان هاي من واحد إيجا يا كل يا جواد حوله هذا بالعاقة إلى لها إيوه إيدي إلى قيان إيوه دخلها يسمو فيرين مدنا واحد هو أنت أو قرصة يا واحد ويقرحان تهاي وانا مدة ما انت انفيلي او قبله وحا ويقتك بحيلي قبل الا لوايه قبر مدو الا مدير الهي ونحرس موياني هي ميلها لا اسكو عديو اما سميلها لا قطو ولا بوحا وميش لو يعي ويان ما كينيا نكسو دبا وحا ويه قبر غوبيا او غور ربا وحا ايغانيا كليا مid saxadaya bas hadda waxa ka dhalanaya in gurigi oo burburo هي dumarka marka waxa loo guursadaa waxa weeye oo raggu ku xishaamo ka sallallahu alayhi wasallam حوالي هاي أما سواها وحي كسر جدا حسب في عن أما سواها وقروحها لكن رسولك صلى الله عليه وسلم وحو ناحريا سيقريها إن الله قهر المودة إيا الرحمة الله قهره وإن رشؤوا نكسناته مدى دين تله تاسو ناحريا رسولك صلى الله عليه وسلم مركا إلى يقريه بربران قبلوا أذيك أسبابات كل هذه محايا لوين إلهي قياري أو سوالك جلباك جيحي هاي oo jeebisku ka dhacayo ama satintiisii guduudsaday oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wadani uu amra ka leexday oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam khilaafay goormu adika naxaya haye waxaad maqli gabadhii hadda aad waxa soo mariday waxaad maqli mudakka bacay in gabadhii la furay haye illa shala waxay bataagneedba aniga raba la igu mehriyo aniga raba illa waani yare haye markaas waxa loo maleeyay ranti inay tahayba in jeebis waxa way la xirto haddana mid khalaaqato waxa weeye jilbaha ka jeexan haye warwiil ilaahay ilaalin waaye oo diintiisa ilaashan waaye goormo sharaftaada ku waardiyeynaya war adigu ilaahay ka baqa dumarow liana maxaa yeelay gurgu waxa weeye heblayo waa la soo furay oo waxay maraydaa 5 nin sharafku ma ahan haye se waxaan idinaa waxa way dhalinyarooy ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqa si guryaha loo waxa weeye looga helo mawadda iyo raxma midda kale waxa weeye aroosyada marka la dhiganayo si guryuhu qiimo u yeeshaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala loo raali geliyo oo rabbi gurgiina uga dhiga mid waara oo qiimo yeesha aroosyadiina rabbi jalla wa ala ku raali geliya aroos baan ku leexday mar dhexe hees laga garaacayay markaas waxa ugu tagay inaan saxooga ballan dacwo ka soo guto markaas waxa la iga horkeena shiiqow meesha tacsiim ma ahan wacdi laga marrabo meesha wacdi laga marrabo tacsiim ma ahan meesha waa aroosna waxyaabahan oo kale laga xiiseeyaaba haye marka meel ilaahay lagu caragelinayo
oo marka ugu horrayso la abuuraya ilaahay lagu carageliyey goormow waxa weeye qiimo iyo wanaag yeelanaya si marka guryuhu ay qayr u yeeshaan ay wanaag u yeeshaan oo waxa weeye gurigaasu ilaahay subxaanahu wa tacaala u bulaaliyo waa in marka ugu horraysa diinta ilaahay laga ilaaliyo